jira horumarkan technology-ga ee dunida yaalla ama horumarka maadiga aan iskuba daro qaybtiisa nidaamka ku saabsan ama administration-ka iyo waxa ku saabsan iyo qaybtiisan kale wax soo saar ku saabsanba waxa leenahay waxa jirta qaanuun xukuma oo ciddii qaadataa wuxuu doonaha rumaysnaade uu horumaro ciddii ka tagtaana ay dib u dhacdo kaasi maaha kuwan anigu ka warramayo laakiin waa mid dunidoo dhan isku waafaqsantay waxay dhahdaan ummadi waxa ay haysataa ama ra'sumaalka ummaddu ay leedahay waa 3 shay waa dhulka iyo dadka iyo waqtiga ay nooshahay ummadi waxay haysataa waa 3 shay waa dhulka ay ku nooshahay waqtiga ay nooshahay iyo dadka ay haysato si kale haddaan u tilmaamo waxay leeyihiin 5 shay haddii la helo waa qasab ummaddaasi inay horumarto 5 shay ummad kasta oo qaadata iyadoo aan cidna ku tiirsanin bay horumari kartaa maxay tahay 5 tani waxay leeyihiin haddii ummadi bay yidhaahdeen dhulkeeda ay istiqlaal kaamila ku samayso yacni dhulkeeda hadday ka faa'iidaysato waxa gudihiisa ku jira iyo waxa dushiisa saaranba ummad kasta oo tijaabisa dhulkeeda inay ka faa'iidaysato waxa dul saaran iyo waxa gudihiisa ku jira ama baddiisa iyo barigiisa iyo gudihiisaba ummad kasta oo tijaabisa inay ka faa'iidaysataa waxay heshay qaanuunkii koowaad ee horumarka bay yidhaahdeen nuqdada labaad waxay yidhaahdeen ummad kasta oo waqtigeeda ka faa'iidaysata ama timekeedu yahay programming oo waqtigeeda qaybsato waxay qaban lahayd ku qaybsata waxay heshay bay yidhaahdaan qaanuunka labaad ee horumarka ka saddexaad ummad kasta oo tijaabisa bay yidhaahdeen inay soo saarto ikhtisaasaadka ama specialistiska ay u baahan tahay cilmiga ama aqoonta ay u baahan tahay say iyadu isugu filaan lahayd ummad kasta oo tijaabisa sidii ay u heli lahayd aqoon-yahanadeeda oo ku filan waxay heshay bay yidhaahdaan qaanuunkii saddexaad ee horumarka ummad kasta bay yidhaahdeen oo haysata nidaam taagan nidaam mustaqira taagan nidaamka taagan maxaa looga jeedaa nidaamka inqilaabaadka ama marka shalayta midiinta kursiga xagga u jeediyay ka dambe markuu yimaado xagga kale u jeediyo weligeed laguma horumaro ummad kastoo nidaam taagan haysata walow nidaamkaasi bay yidhaahdaan xataa ha xumaadane naaziyiintii maanta dunidu waa wada caydaa hitlerna waxaa la yidhahaa ninka nidaam xumimo soo marin laakiin 6 sannadood buu Jarmal wuxuu ku geeyey inay isku dayaan dunida inay mar labaad qabsadaan isagoo marka hore ku jiray maxay mucaahadatu Versailles iyadoo laga saxeexay ayuu 16 years wuxuu ku gaarsiiyay haddana inuu isku dayaba dunida inuu mar labaad qabsado waxay leeyihiin markaasi nidaamku xataa haba adkaadane waa inuu mustaqiriyay mustaqirku waa maxay yacni qaabku u socday waa inuu u socdaa hawl fulintiisa nololeed oo dhammi sidii loogu talagalay waa inay u socotaa inuu joogaa ka shanaad waxay dhahdaan ummaddaasi waa inay leedahay thaqaafa ama culture dhaqan ogol ashyaadaynu soo sheegnay inay hore u socon karaan maxay taa uga jeedaa waxay leeyihin bilmatal thaqaafaadka qaarkood bay yidhaahdeen in laga gaaloobo mooyaane laguma horumari karo aan laba tusaale idin siiyo waxay leeyihin matalan athaqaafa alhinduusiya hindida nimanka la yidhahda hindus waxa la yidhahdaa bay aaminsan yihiin suurtagal maaha bay yidhaahdeen ummadda fikraddaasi rumaysan ee rabta inay waaqaca nololeed ku dabaqda inay horumarto hal tusaale oo quraa kuugu filan bay yidhahdeen tusaale ahaan matalan ummaddaa jiirku waa mamnuuc in la dila bay yidhahdeen yacni fii thaqaafatihim aw fii diinihim jiirka in la laaya waa mamnuuc ummadi hadday jiirka daasato qura bay yidhahdaan kama suurtagal ah inay horumarto yacni jiirku waa wax hore isu dhali og dhibaato badan beerahan iyo waxaan la beeriyo waxaan oo dhan madaxa u roga waxay dhaaheen jiirkoo la sii daayaa wuxuu ku filan yahay horumarka ummaddu leedoo dhan inuu madaxa u rogo
haddaan si kale u tilmaamo waxaanad moodaa yani xadiidkii nebigu inuu tilmaamaya shantuu nebigu lahaa meel labaan kusii dayn inuu jiirku ka mid ahaa laakiin aan xagga kale uga sii tallaabo tusaale labaad bay bixiyaana waxay idhahdaan athaqaafa annasraaniya christianitygu medieval periodkii siduu ahaa haddii lagu wada bay leeyihiin horumarku isna suurtagal ma ahayn yacni in laga gaaloobo inuu maamulka qabto aragtida christianityga in wax lagu maamulo in laga tagaa waxay ahayd bay leeyihiin mid u faa'iidaa in bini aadamku horumaro haddiise la haysan lahaa bay idhaahdeen lama horumari lahayn tusaale ahaan bay idhaahdeen aragtidaasi waagaa waxay qabtay guurka waxa loo yaqaanaa inuu wax xun yahay rijsi inuu yahay yacni ninka guursaday iyo ninkaan guursaday inuu fiican yahay lidaalika baa goobabku ma guursadaan saa daraaddeed waxay idhahdeen haddii la raaco bay idhahdeen fikraddaasi oo ah inuu qofku ka dheeraado dee in bulshadii bini aadam ay isdhasho ay timaado waxay noqon lahayd bay leeyiin qarni qura inay ummadoo dhammi ku madhato ama si kale haddaan u tilmaamo waxay leeyihiin haddii thaqaafadii medieval periodka ay rumaysnaayeen nimanka kristankii la sii dayn lahaa maanta waxaa dhici lahayd qof waxgarada oo galbeedka joogaa inaanu jirin waayo aragtidooda waxay ka hor jeeday aragtidii cilmiga ahayd ee markaa dunida taallay sidaa daraaddeed bay waxay ku xukumeen waa kuwii maxkamadda samaystay dabeetana waxay xukumeen in nimankaa culammada ee fikradda meesha taalle fikrad ka gedisan la timaada in lagu qaado dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin maxkamadaha qaadi jiray waxay xukumi jireen laba midu qofka in la dilo isagoo nool taa macnaheedu waxa weeyaan in la gubo dhiig kama imanaya dee haddii la gubo ka labaadna wuxuu ahaa in lagu xidho jawaano ciid iyo wax ama dhagax weyn dabeetana bedda lagu rido iyona dhiig lama arkayo marka nimanka saynisyahanada waxa lagu xukumi jiray in dil aan dhiiggiisu dhulka u dhicin waa taariikhda laydinku dhigaa boroono iyo in la gubay galiil oo in la xidhay aakhirkii xabsiga in uu kaga soo baxay markuu yidhi waan ka noqday fikraddii hore dhul baa wareega buu yidhi intaas baabaa xabsiga ugu filay iyadoo fikradaha in badan loo eedaynayey in lalahaa reer barigay kala yimaadeen saynu iminka u nidhaano ninkani gaalnimada galbeedku kala yimid ayaa waxay odhan jireen iyaguna xagga ayaa barigay naga soo gashay fikradaha gaalnimada ee nimankan ay wadaan waxay leenahay markaas waxay kaliftay in ninka reer galbeed imaa inuu qaato fikradda diintiisu sheegayso iyo inuu qaato waxa saynisku sheegayo oo sayniskiisa iska raaco dabeetana ka gaaloobo tusaale kale aan idin siiya matalan zandani caalimka la yidhaahda wuxuu leeyahy waxaan tegay maraykanka dabeetana waxaan tegay buu yidhi machad weyn ama meel cilmi baadhista lagu sameeyo maraykanka macadkaasi waa macad al-irsaad yani waxaan cirka iyo waxaan ku saabsan yani hawada isbedelkeeda iyo dayaxgamaceedadan iyo waxaan la dirayo ayuu darsaa 750 jaamacadood ayaa markaa cilmi baadhista ku sameeya oo maraykanka ku leeyahy ninka macadka haysta markaa buu u tegey zandani isagoo raba inuu su-aalo weydiiyo ninka macadka haystaa wuxuu ka tirsan yahay culammada qaybta loo yaqaano allaadriya qolaad tidhahda waxba ma ogin xaggaad ka timi ma ogi xaggaad u socotaa ma ogi maxaad rumaysantahay ma ogi yacni ma ogi jawaab buu waayo wax kasta wuxuu kaga baxayaa ma ogi waa fikra yacni dadaamisan yihi waxaan ku yidhi buu yidhi su-aalo badan buu weydiiyey ama niqaash badan bay galeen laakiin waxaan jeclun anigu nuqdad qura inaan ka tilmaamo nuqdadaasi waxay tahay maxaad u qaadan weyday christianityga diinta waddankiinu haysto maxaad ku diiday wuxuu igu yidhi buu yidhi mar rabo cilmigayga inaan uga 15 sano horteed baan sidhi buu yidhi christianityga qaado dabeetana waxaan tegay buu yidhi kiniisadda markaan tegayna biyaa lay keenay biyaha cab baa laygu yidhi waana dhiiggii masiixa bay igu yidhaahdeen buu yidhi damul masiix weeyaana cab waxaan ku yidhi buu yidhi dee kani waana dhiig maaha waa biyihiiye male waa ramsi yacni calaamad bay ka yihiin miyaa damul masiixa maya waxaa la yidhi waa caynuha iyagaa laftiisii weeyaan dhiiggii masiixa lafteedii weeyaana cab oo adigoo saa rumaysan ku cab waa meesha aniga biyo dhiiggii ciise laygu sheegaya buu yidhi waxba cabbi maayana kala kaxeeya uu iska noqday yacni waxaan uga jeedaa waxay leeyihiin haddii thaqaafadda tani siday ahayd lagu sii dayn lahaa ma suurtagal ahayn in horumarkan yurub ay gaadho idan xaq bay u lahaayeen bay leeyihin inay ka tagaan inkastoo gaalnimo aanay xaq u lahayn iyo alla dafir waxaan leenahay marka 5 qodob ciddii laga helo
qodobka koowaad oo sheegaya dhulka in laga faa'iidaysto dushiisa iyo hoostiisaba wixii saaran qodobka labaad oo sheegaya waqtiga la haysta in laga faa'iidaysto oo yacni waqtigu aan innaba lumin qodobka saddexaad oo sheegaya bay leeyihin inuu noqdo ikhtisaasaadkii ama wixii aqoomihii loo baahnaayoo dhan inay ummaddani tijaabinayso inay kobciso ama se dhaliso qodobka afraad oo sheegaya inuu nidaamka meesha yaallaa mustaqriya ama mid degan uu yahay ka shanaad oo sheegaya thaqaafada ama biliifka ama cultureka ay dadkani haystaan inuu yahay mid ogol inay aqoontani hore u socoto shantaaba idhaahdaan ciddii laga helo dunida halkay doontaba ha ka deganaanaatee waxaa qasaba inay horu marto